waa maxay coronavirus? Coronavirus waa xanuun ballaaran oo ka kooban fayrusyo kaasoo sababi kara cudurrada neef-mareenka sida hargabka. Sida laga soo xigtay xarunta ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada ee CDC, dadka badankood waxay qaadi karaan xanuunka noloshooda hal mar. Coronavirus wuxuu sababi karaa xanuunada neef-mareenka hooseeya sida oof-wareenka iyo borokiitada. Fayrusyadan ayaa caan ku ah xayawaanada, laakiin in yar oo ka mid ah ayaa la aaminsan yahay inay saameyn karaan aadanaha marar dhif ah. wuxuuna iskaga faafi karaa aadanaha iyo xayawaanka. waa sida uu ku bilowday coronavirus halkee ka yimi? tan iyo markii uu fayruskan ku soo fiday magaalada Wuhan, waxaa socday warar ku tiri kuteen ah oo sheegaya in xanuunkan uu ka yimi haweeney cuntay hilibka fiidmeerta. si kastaba ha ahaatee, cilmi baarayaashu waxay soo saareen in laba hidde-side oo laga helay fiidmeerta ay aad ugu dhowaayeen coronavirus, waxayna la wadaageen 88% hidde-sidaha la helay. iyadoo lagu saleynayo baaritaanadan, qorayaashu waxay sheegeen in ay u badan tahay in coronavirus uu ka yimid fiidmeerta. si kastaba ha ahaatee, fiidmeer laguma iibin suuqa cunnada badda iyo xoolaha ee Huwanaan, taasoo soo jeedinaysa in xayawaan kale oo aan weli la aqoonsan ay u muuqato inuu gudbiyey xanuunkan. daraasad hore ayaa sheegaysa in xanuunkan uu ka yimid masaska, maadaama lagu iibinayo suuqa maxalliga ah ee cunnada badda iyo xoolaha ee Huwanaan. khubarada qaar ayaa dhaleeceeyay daraasadan, iyagoo sheegay inaysan caddeyn in xanuunkan uu u kala gudbi karo masaska iyo aadanaha. coronavirus ma leeyahay magac rasmi ah? ma jiro magac rasmi ah oo ilaa iyo hadda loo aqoonsaday xanuunkan. 30 Janaayo, WHO waxay soo jeedisay in xanuunkan loogu yeero 2019 nCoV. cudurka neef-mareenka daran. xarafka N wuxuu u taagan yahay sheeko cusub, iyo CoV oo u taagan coronavirus. magacan wuxuu u baahan doonaa ogolaanshaha ururka caafimaadka xoolaha ee dunida ee loo yaqaan OIE iyo ururka cuntada iyo beeraha ee loo yaqaano FAO. go'aanka ugu dambeeya ee magaca rasmiga ah ee fayruskan waxaa samayn doona guddiga rasmiga ah ee canshuuraha fayrusyada, sida ay sheegtay hay'adda WHO. warbixin la daabacay Janaayo 29keedii, cilmi baarayaal ku sugan Shiinaha ayaa cudurkan ku tilmaamay coronavirus novel. coronavirus ma ku faafi karaa dadka dhexdooda? haa, fayruskan ayaa lagu soo warramayaa inuu ku faafay qof ilaa qof qaybo badan oo ka tirsan dalka Shiinaha iyo wadamo kale, sida laga soo xigtay ururka ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada ee CDC. 30 Janaayo, ururka CDC ayaa aqoonsaday kiiskii ugu horeeyay ee qof ee ku faafa Shiinaha. cudurkan ayaa lagu kala qaadi karaa hawada ka imaanaysa qofka qaba xanuunka, sida qufaca iyo hintisada, xiriirka taabashada ama gacan qaadista shay ama meel uu taabtay qofka qaba xanuunka adigoo ku taabanaya afkaaga ama sankaaga. waa maxay calaamadaha coronavirus? sidana loo daaweyn karaa? astaamaha cudurka coronavirus waxaa ka mid ah qandho, qufac iyo neefsashada oo adkaata. waxaana lagu qiyaasayaa in astaamayaashan soo muuqan karaan 2 ilaa 14 maalmood kadib qaadista. ma jiraan daaweyn gaar ah oo loogu talagalay fayruskan. dadka badidoodna waa kuwo iskood uga bogsooda, waxaana ugu dhow in qofku uu nasto uuna qubaysto si calaamadahan ay uga yaraadaan. sidoo kale waa in qofka isku arka calaamadahan uu cabaa cabitaan badan. ma jiro talaal loogu talagalay coronavirus, laakiin baarayaasha macadka caafimaadka qaranka ee Mareykanka waxay sheegeen inay ka shaqeynayaan ururinta muunada fayruskan si ay u qaabeeyaan talaal lagu tababari doono unugyada difaaca ee bukaanka si loo ogaado loona baabi'iyo fayruskan. sidee dawladuhu uga hortageen faafitaanka xanuunkan? dawladda Shiinaha ayaa Wuhan iyo magaalooyin kale oo u dhow ku soo rogtay bandow, taasoo la micno ah in dadka aan loo ogoleen bannaanka iyo aagaga. dawladaha Taiwan iyo Hong Kong labaduba waxay sheegeen inaysan ogolaan doonin qof kasta oo ka soo jeeda kana imaanaya gobolka Hubei, waana halka ay ku taalo Wuhan. garoomada diyaaradaha ee waaweyn ee dalka Mareykanka waxay sameynayaan baaritaano si ay isku day ugu ogaadaan astaamaha fayruskan. 28 Janaayo, saraakiisha CDC waxay shaaciyeen in 15 garoomo diyaaradeed oo dheeri ah oo ku yaala dalka Mareykanka ay baaritaan ku sameyn doonaan dadka safarka ah. ku dhawaad 200 oo Amerikaan ah ayaa laga soo daadgureeyay Wuhan, waxaana baaritaan lagu sameyn doonaa muddo 14 maalmood ah si loo ogaado calaamadaha xanuunkan, sida ay sheegtay CNN. dawladda Shiinaha ayaa mamnuucday iibinta duurjoogta, suuqyada, maqaayadaha iyo internetka. sidee dadku iskaga ilaalin karaan xanuunkan? sida ugu fudud ee aad iskaga ilaalin kartid xanuunkan waa inaad ka fogaatid qofka qaba xanuunkan. hay'adaha caafimaadkuna waxay ku talinayaan talaabooyinka soo socda si looga hortago faafitaanka xanuunkan. inta aadan wax cunin, gacmahaaga ku dhaq saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 sekin. iskana ilaali inaad gacmahaaga ku taabatid sankaaga, afkaaga iyo indhahaaga inta aadan dhaqin ka hor. iska ilaali inaad xiriir la yeelatid dadka xanuunsan. gurigaaga joog haddii aad dareemaysid xanuun.
mar walbana isku day inaad nadiifsanaatid mar walbo aad taabatid wax ama shay. haddii aad u safraysid Shiinaha waa inaad ka fogaatid dadka buka, sidoo kale waa inaad ka fogaatid xayawaanka dhintay ama nool, suuqyada xoolaha, cunnada xoolaha sida hilibka iyo caanaha. dadka u safray Shiinaha ee dareemaya qandho, qufac iyo neefsashada oo ku adkaatay waa inay 2 asbuuc gudahood ay ku raadsadaan daryeel caafimaad. maanta barnaamijkeenu intaas ayuu ku egyahay. fadlan haddaad nagu cusub tahay ku soo biir kanaalka, sidoo kalena waxaad nagala socon kartaa baraha bulshada sida Facebook iyo Instagram.